gudoomiyaha banka Soomaaliland Cali Ibrahim Jaamac Baghdadi ayaa xariga ka jaray dayactir iyo dhismo lagu kordhiyay bangiga laanta Laascaanood waxaana ka soo qayb galay wasiirka horumarinta biyaha Salabaan Yuusuf Cali Koore maamulka gobolka Sool kan degmada Laascaanood odayaal waxgarad saraakiil ka tirsan ciidanka Soomaaliland iyo guud ahaan shaqaalaha bangiga laanta Laascaanood waxaana ugu horeyntii halkaas ka hadlay gudoomiyaha bangiga laanta Laascaanood Diiriye Xaashi Cali waxa maanta sharaf weyn oo ah inuu gudoomiyihii banku noo furayo laanta Laascaanood iyo 4 guri oo uu ka shaqeeyay kadib markii uu in yar magacaawna intuu noo yimi uu arkay burbur badan iyo dhibaabo badan oo ka taagan wuxuu markaa go'aansaday inuu waxna ku daro wixii horena dib u habeyn iyo hagaajin ku sameeyo xafidullah sidoo kale waxa halkaas ka hadlay maamulka gobolka Sool waxaana hadaladoodii kamid ahaa in halkan aan ku furno xaruntii bangiga ee magaalada Laascaanood oo runtii maanta aan gudoomiyaha banka Soomaaliland uga mahadnaqayno in lagu sameeyay dib u dhis iyo dhismayaal cusub oo qurux badan gudoomiyaha waxaan leeyahay mar labaad iyo mar koowaad iyo mar saddexaad waa kaga mahadnaqaynaa ku soo dhawow laanta Laascaanood ee banki laanta Laascaanood ku soo dhawow runtii aad baanu kugu mahad celinaynaa dayactirka iyo dib u habeynta aad ku sameysay iyo qurxinta wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha sidoo kale isaguna deewo inala kulmay si wanaagsan oo sharaf leh waxa isna dhankiisa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha laakiin hadii uu dib u bilay gudoomiyaha banku runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa lagu soo hagan karaa waana talaabooyin loo baahan yahay in hore loo qaado ugu dambeynna gudoomiyaha bangiga Soomaaliland ayaa sheegay inay farxad u tahay dib u dhiska iyo dayactirka bangiga laanta Laascaanood waxaana uu sidoo kale baaq u diray ganacsatada Soomaaliland dhinaca sarifka iyo maciishada marka waxa la noqotay inaan priority ka dhigo laamaha aan dib u habeynta ku sameynayo Hargeysa ayaan ugu horeysiinay Berbera ku xigsiinay Laascaanood waa magaalada saddexaad ee aan ku sameyno dib u habeynta marka aad baan ugu faraxsanahay inaan iyadoo imika dhisno wanaagsan oo qurux badan oo shaqaale ka shaqeynayo uniformka ay istaan ku soo noqono sida wasiirku sheegayna nabadgelyada ayaa horumarka wadata bulshada Soomaaliland aan fariin ugu gudbiyo fariidaas waxay tahay banka dhexe Soomaaliland wuxuu aad iyo aad ugu dadaalay muddooyinkii ugu dambeeyay inuu dejiyo shilinka Soomaaliland sicir bararkana la dagaalamo alxamdulillah labadaas siyaasadba way hirgaleen inflationkii ama sicir bararkii wuxuu soo degay 7.2% waxaanu ka soo degay 18.9% oo taagnaa February last year shilin Soomaaliland kina wuxuu ka soo degay 11 markaa uu nabi wuxuu maray 8,000 iyo 600 markaa waxaanu ku booreynaa ganacsatada iyo dadka baayac mushtariga waliba gaar ahaan bakhaarleyda iyo hoteelada iyo dadka waxa laga gato inay ku sargooyaan halka dollar sicirka oo maanta taagan yahay shilinka Soomaaliland markaan culimada weydiinay qaarkood waxaan ugu fasireen inay tahay dulsaar ama ribo oo xaraan ay tahay insha Allah wiiga soo socda waxaanu kulmada gali doonaa hay'adaha ay khusayso Samiir Saciid Bilkalsan TV Laascaanood